Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada channelka Romani Media. Magaciiguna waa Cabbaas Mustaf. Waxaan maanta muuqaalkeena ku soo qaadan doonaa magaalada Tokyo. Intaanan muuqaalka u gadagelin, like share videogan. Wuxuu naga saacidi karaa YouTube-ka in dad badan gaarsiiyo. magaaladani waa Tokyo, waxayna ku taalaa bartamaha Japan. Waxaa markeed hore la oran jiray Edo, waxayna ahayd tuulo yar oo kalluumaysi. Qarnigii 15aad ayaa markii ugu horeysay la degay. Maanta waxaa ku nool gudaheeda iyo nawaaxigeeda Greater Tokyo, una soo shaqo tago dad kor u dhaafaya 38 milyan oo qof. Waa magaalada dadka ugu badan ee ku xiran yihiin dunida. Canada oo ah dalka labaad ee ugu dhulka weyn caalamka ayay ka dad badan tahay. Dhaqaalaheedu wuxuu kor u dhaafayaa ilaa 2 trilyan. Waxay ka dhaqaale badan tahay dalal badan oo ay ka mid yihiin Ruushka, Turkiga, Sacuudiga, Brazil, Italiya, Mexico, Canada, South Korea, Australia iyo Spain. Waa dalalka safka hore kaga jira dhaqaalaha ugu badan dunida. Markii laga reebo 7 dal, inta kale iyada ka dhaqaale badan dalalka caalamka. Waxay hoy u tahay maanta 36 ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn dunida. Waxaa ku yaala gudaheeda suuqa ugu weyn ee kulun lagu gado dunida, oo waxaa la sheegaa in maalinkii ku dhawaad 60,000 oo qof suuqaas kaga adeegtaan. Waxay leedahay ilaa 900 oo xarumood oo tareemada laga raaco. Dhexdeeda waxaa ka shaqeeya tareemada lagu magacaabo kuwa xabadda bullet train oo aad u dheereeya. Tokyo gudaheeda waxaa ku yaal isgoys aad u mashquul badan oo halkii waqti ay ku gudbaan 3,000 oo qof. Waxaa soo booqda magaaladan ku dhawaad 10 milyan oo qof oo ajaanib ah. Arrinta cajiibka ah ayaa ah in Tokyo hawadeeda aysan diyaarad marin. Tan iyo dagaalkii labaad ee dunida kadib, ciidamada Mareykanka ayaa maamula hawada Tokyo iyo nawaaxigeeda. Waxaana laga mamnuucay in diyaaraduhu ay dul maraan. 2 madaar ayay leedahay oo u jira masaafo 20 kiiloomitir ah. Madaarka Haneda ayaa ah kan afraad ee adduunka ugu mashquulka badan. 90 milyan oo rakaab ku dhawaad baa isticmaasha sanadkii. Tokyo dadkeedu waa dad aad u shaqeeya oo 98% dadka shaqada u diyaarka ah waa ay shaqeeyaan. Ilaa 18 saacadood ayay shaqeeyaan dadkeedu, waana meelaha ugu shaqada badan. Dakhliga soo gala sanadkii waa ilaa 70,000, halka cimrigoodu uu gaaro ilaa 87 sano ciriiris ahaan. Dad 100 sano kor u dhaafay oo kumanaan ka badan ayaa ku nool. Heerka horumarka aadamaha HDI-da waa mid ka mid ah magaalooyinka ugu sareeya. Dhaqaalaha iyo hal-abuurka kaalinta afraad ayay kaga jiraan.